qaybtani labaad ee taxnaa Sweet Fast Love waxa ay noo joogtay Miyaan oo Sunyaan u soo dhawaanayo intaanan bilaabin qaybtani saddexaad hal codsi ayaan wataa codsigaasna wax kale ma ahan oo kaliya waxaan rabaa inaan commentiga igula sheekaysataan maxaa yeelay aad ayaan u jeclahay inaan ila sheekaysto muuqaalkan haddii aad aragtaan cid walba awooddo waxaan rajaynayaa inay commenti ii soo qorto si aan reply ugu soo galo maalinka xigana Miyaan Sunyaan ayuu hadiyad u keenayaa hadiyadaasina wax kale ma aysan ahayn saacad ay ahayd saacadaasi oo cadeynayso ama Miyaan u sheegayso haddii ay Sunyaan dhibaato ku jirto iyo haddii kale waxay aato isla markaas meesha waxa imaanayso gabar ay Sunyaan hal meel ka wada shaqeeyaan waxayna u sheegaysaa Yuun inuu guri siiyo Sunyaan waliba gurigaasi oo ay ku noolaanayso aydan midaas markii ay maqasho aad ay ugu farxaysaa intaas wixii ka dambeeyay waxa ay bilaabaysaa gurigii hadiyada lagu siiyay inay u soo wareegato maalinka xitaan markii ay shaqada imaado waxay rabtay Yuun inay u mahadceliso hase ahaatee isma arkayaan maalinka shaqada ayaa ku badnayd haween ayaana lagu gaarayaa ugu dambeyntiina Yuun ay la kulmaysaa aad ayna ugu mahadcelinaysaa waxayna aga mahadcelinaysaa guriga uu siiyay habeenkaas waxaa dhacaysa Sunyaan in laga xirto wiishka waliba iyadoo daalan aanan kori karin dabaqa meel ayna iska fariisanaysaa waa ayna iska oynaysaa balse nasiib wanaag Miyaan ayaa u imaanayo iyadoo meesha fadhiso waliba ilmeynayso intaas kadib wuxuu bilaabayaa dhabarkiisa inuu ku soo qaado balse habeenkaas waxaa dhacaysa Miyaan inuu la wadaagay Sunyaan inuu jecel yahay ayadan intaas kadib waa ay ka xishoonaysaa irid ayna ka soo xiranaysaa sidoo kale Sunyaan gabadha uu xiriirka lahaa waliba qiyaamaysay waxay rabtay inay dib iskugu soo laabtaan laakiin wuxuu u sheegayaa inay qiyaantay waliba ay qiyaano badan tahay midaasina aysan dhici karin ugu dambeyntiina iyadoo u wacayso waliba indhaheeda ay ilmo ka daadanayaan ayuu wadada aaga dhaqaaqaya waxay aatay Sunyaan guriga waa ay ku soo caajisaysaa intaas kadib waxay bilaabaysaa inay dibadda u soo baxdo balse waxay arkaysaa Miyaan oo fadhiyo irideeda hortiisa markii ay weydiisan sababta waxa uu ku dhaaya waxaan ka baqay inaad soo dhacdo adigoo qarweysid anigana waa aan ku ilaalinahay sidaas darteed ayaan halkan u fariistay midaasi Sunyaan aad ay ugu farxaysaa waliba waxay ku sii farxaysaa inay haysato qof dhibkeeda dhibayo waxay aatay habeenka xiga Sunyaan markii ay shaqada ka soo baxdo isbitaalka ayaa laga soo wacaya waxaana loo sheegayaa saaxiibkeeda Liidayn inuu rabo inuu isbitaalka uu ka baxo intaas kadib isbitaalka ay imaanaysaa doctorka ayayna xaaladiisa warsanaysaa waxa uu u sheegayaa inay xoogaa roon tahay hase ahaatee maalmo loo baahan yahay inuu isbitaalka ku sii jiro intaas kadib Sunyaan waxay saaxiibkeeda Liidayn ku codsanaysaa inuu maalmo isbitaalka ku sii jiro si xanuunkiisa loola tacaalo intaas kadib waxay u sheegaysaa Miyaan inuu ku dhahay waa aan ku jeclahay Liidayn wuxuu ku dhahayaa aniga waa aan ogaa inuu ku jecel yahay maxaa yeelay waxaan ka dareemay sida uu kuugu naxariisanayo waxay ahaato markii ay ka soo tagto Liidayn waxay wadada ku kulmayaan Sunyaan asagana waa uu murugaysnay maxaa yeelay saaxiibtiisa ayaa qiyaantay aydan xoogaa niyada ayay u dhisaysaa waxayna u sheegaysaa tani inay tahay duni wax walbana uu kala kulmayo intaas kadib hab ayay siinayaan waa ayna ismacsalaameynayaan xilligaas labadooda oo isku dhagan Sunyaan ekstiisa ayaa sawir ka qaadayso ugu dambeyntiina Sunyaan markii ay gurigeeda imaado waxay ogaanaysaa boombilaheeda inuu ka lumay laakiin markii ay Sunyaan la joogtay ayuu ka dhacay asaga ayaana u xafiday maalinka xiga Sunyaan iyo Miyaan waxay isku arkayaan garoonka basketballka lagu ciyaaro maalinkaas Miyaan wuxuu ku arkayaa Sunyaan boombilaha ay leedahay Sunyaan asagana waa uu xanaaqayaa wuxuuna saaxiibkiisa aaga digayaa gabadhaas inuu iskaaga fogaado Miyaan Sunyaan waa uu la kaftama mooyee marna kama uusan kaftami jirin inay qof u soo dhawaatana aad ayuu u necbay maxaa yeelay jacaylku uu u qaba ayaa zaa'id ahaa intaas kadib Miyaan guriga Sunyaan ayuu keenayaa sawir oo asagoo ugu talagalay waliba aad u qurux badan xilligaas ayada ma aysan joogin shaqo ayay ku maqnayd markii ay imaadana waa ay arkaysaa midaasina aad ayay ugu farxaysaa waxay aato waxay ugu imaanaysaa qaybta hoose ee gurigeeda intaas kadib waxay ku dhaysaa orod guriga iska aad walibana seexo aniga ayaa is ilaalinayo iskana taxadarayo sidoo kale halkaas waxaan ku ogaanaynaa Sunyaan inay jeclaatay ayada xataa Miyaan balse ay ka qarinayso inay u sheegto maalinka xigan Yuun waxa uu kaamirada ka arkayaa Sunyaan oo ku jirto xafiiska documentiska waliba iyadoo u muuqata mid raadinayso feel muhiim ah xilligaas wixii ka dambeeyay Yuun waa uu ka shaqeynayaa Sunyaan sidoo kale waxaan ogaanaynaa Sunyaan inay dib ugu soo laabatay jaamacadda xoogaana farxadeedii ay dib u soo laabatay marba markaasi dambayso Miyaan iyo Sunyaan waxay ahaayeen kuwo isku soo dhawaadaan walibana naxariis iyo jacayl isku muujiyaan laakiin Miyaan wixiis waa uu cadeystay keliyana Sunyaan ayuu ka warsugayaa Miyaanha bara bulshada ay famous ka ahayd waliba platformka TikTok lagu magacaabo sidoo kalena waxay aqoon buuxda u lahayd sida make-upka loo marsado waxaan ogaanaynaa Lindy inuusan weli ka sii harin ayna u muuqatay Miyaanha inay muhiim u tahay waxay aato ugu dambeyntii Sunyaan Yuun ayaa xafiiskiisa ugu yeerayo markii ay u imaadana waxa uu siinayaa dhar iyo dahab waliba aad u qurux badan intaas kadib waxa uu ku codsanayaa inay xaflad u raacdo balse waxay u sheegaysaa inaysan u raaci karin midaasina aysan macquulgal ahayn maamulada shirkadda Oyan Groupna waxay ahayd mid mar walba Sunyaan cadaadis saarta hase ahaatee mar walba milkiilaha shirkadda Yuun ayaa ka celin jiray walibana ka difaaci jiray maamulada shirkadda Monica-na inay cadaadis saarto Sunyaan waxa ka dambeysay Linha ayada ayaan ku soo diri jirtay waxayna Sunyaan u qabtay nacab aan la aqoonin meel uu ka imaaday ugu dambeyntiina Miyaan waxa loo soo dirayaa sawirkii laga qaaday Sunyaan iyo Sunyaan habeenkii ay kulmayeen asagana midaas aad ayuu aaga xanaaqayaa habeenkaasina guriga Sunyaan ma tagayo habeenkaasi Miyaan asxaabtiisa ayuu waqti iska la qaadanayay si xun ayuuna qamri u cabayaa waxaana maskaxdiisa ku soo laalaabanaysa Sunyaan iyo Sunyaan oo hab isiinayaan ugu dambeyntii Sunyaan waxa soo wacayso saaxiibteeda Yaanha xilligaas
xilligaas saq dhexe ayay ahayd waxayna video call ku tusaysaa miyaan oo si xun qamri u cabay weliba kusoo celcelinayo sunyaan ayaa u baahanahay. ugu dambeyntiina xilligaas ayay gurigeeda kasoo baxaysaa waxayna imaanaysaa miyaan halkii uu joogay. habeenkaas sunyaan kaligeeda ayay ahayd waa ay awoodi waynaysaa miyaan inay gurigiisa geyso. hotel ayayna u kireynaysaa hase ahaatee miyaan waa uu diidayaa sunyaan inay ka fogaato. habeenkaasina waxaa dhacayso inay asaga sariirta ee la jiifato. subaxdin waxay kusoo kacaysaa miyaan oo quruxdeeda sida TV oo kale u daabanayo. shaqada markii ay imaadana Monica ayaa bilaabayso inay ku qayliso weliba ay weydiiso meesha ay kusoo daahday. hase ahaatee Yoon ayaa ka celinayo. sunyaan wax walba oo ku dhaco saaxiibkeeda Lee Dain ayay la wadaagtaa. asagana waxa uu ku dhahayaa maalin un waan arki doonaa adigoo faraxsan weliba noloshan ku faraxsan. maalin maalmaha ka mid ah Lina xafiiska walaalkeeda Yoon ayay soo galaysaa weliba asigoo ka maqan. intaas kadib desktop ayay ku arkaysaa muuqaalkii sunyaan ay ku raadinaysay xoogaha shirkadda. waxay ahaataba Lindy habeenada ka mid ah Yanha ayuu ku balaminayaa meel VIP ah si ay waqti ugu qaataan. markii ay imaadana wixii oo ugu soo talagalay waa ay ka diidaysaa inay ka qaadato. sidoo kale uma aysan muuqan qof diyaar u ah inay Lindy ay la sheekaysato. cashadii oo labadooda u dalbaynaysa ay ugu casheeyaan waa ay diidaysaa. asigan waxa uu ku dhahayaa ma ogtid cashadan lacagta lagu dalbay sida lagu soo shaqeeyay sida ay u xanuun badan tahay. cashadana dhammaanteeda asiga ayaa cunayo weliba iyadoo meesha fadhisa ayuuna dhameenayaa. sunyaan shaqadeeda markii laga reebo waqtigeeda ugu badan saaxiibkeeda Lee Dain ayay isbitaal ku wehelisaa. intaasina waxay u samaynaysaa saaxiibkeeda in uusan cidloonin. midaasina waxaa laga helaa saaxiib ku jecel. maalin waxaa dhacayso Yanha inay aragto Lindy oo caruur basketballka barayo. mid ka mid ayaana xanaaqayo gees ayuuna u baxaya hase ahaatee Lindy ayaa u tagaya waa uuna sabarsiinaya. maalinkaas Yanha waxa ay ka heshay Lindy sida oo ugu naxariisanayo caruurta aadka u yaryar. Yanhana xoogaa dareen oo badneen ayaa maalinkaas ku beermayo. waxay ahaataba Sunyaan iyo Monica waxa ay rabeen nin ganacsado ah inay elaboorka ee ka doonaan balse markii ay gaariga soo raacaan una soo dhaqaaqaan dhanka elaboorka waxaa dhacaysa Sunyaan inay soo xasuusato xilliga ay shilka ay galayeen. intaas kadib xaalad xun ayay galaysaa ugu dambeyntii isbitaalka ayaa la keenaya. Sunyaan isbitaalka waxaa kusoo booqanayaan miyaan hooyadiisa iyo aabihiisa balse waxay ogaanayaan inaysan ku faraxsaneyn soo booqashadooda. intaas kadibna dib ayay iskaga laabanayaan. ugu dambeyntii isbitaalka Shiyaan ayaa kusoo booqanayo miyaan asigoo la dagaali raba Shiyaan. Sunyaan ayaa ka celinayso. markii uu kasoo tagay Shiyaan miyaan iyo Sunyaan isbitaalka banaankiisa ay bilaabayaan inay waqti ku qaataan. ugu dambeyntiina ganacsada Thomas iyo Yoon waa ay kulmayaan. Yoonna habeenkii xiga Sunyaan ayuu isbitaal kusoo booqanaya balse asigoo irida soo gali rabo miyaan ayaa irida ka celinayo waxa uuna u diidayaa inuu la kulmo. maalinkii ay bixi rabtay in saaxiibkeeda Lee Dain ayaa isbitaalka ugu imaanayo. waxaana dhacayso miyaan dhammaan alaabtii ay Sunyaan wadatay in loo soo dhiibo ayada iyo Lee Dain in isla soo lugeeyaan weliba ay wadada ku sheekaystaan. sidoo kale Yanha waxay raadinaysay qof ay video ka duubato ayadoo make-up u marinayso. ugu dambeyntii waxay ogaanaysaa qofkaas inuusan qof kale ahayn uu Linda uu yahay. asiga ayayna make-upkii u marinaysaa shacabkeedana ugu faanaysaa. Lindin waxaan oo dhan waxay ugu dhacayaan jecel uu Yanha u qabo. ilaahu dadka jecelka hayo u gargaar maxaa yeelay dhib badan ayay maraan. maalinka xigana Sunyaan waxay u imanaysaa dhakhtareed qaabilsan inay la dacasho xusuusaha dadka. waxaana dhacayso Sunyaan maalinkaas inay wax badan ay soo xasuusato. habeenkiina saaxiibkeeda Lee Dain ay u sheegaysaa dadkii ay soo xasuusatay oo dhan inay ahaayeen hooyadeeda iyo aabaheeda sidoo kale miyaan. asigana waxa uu ku dhahayaa raac maskaxdaada wax walba tartiib ayay dib ugu soo laaban doonaan. intaas kadib wanaagu u sameeyey miyaan ayay soo xasuusanaysaa waa ayna u mahadcelinaysaa. waxaana soo dhaweed miyaan iyo Sunyaan xilliga ay jaamacadda ka qalin jibin lahaayeen. qof walbana diyaargarow ayuu ku jiray. waxaan ogaanaynaa miyaan inuu barto sida robodyada loo sameeyo. sidoo kale waxaan ogaanaynaa Lee Dain xilliga uu isbitaalka uu ka bixi lahay inay soo dhaweey. habeenka xigana Yanha iyo Sunyaan waa ay soo diyaarinayaan waxayna imaanayaan meesha ay ka dhicisay xafladda qalinjabintooda jaamacadda. habeenkaas waxaa dhacayso miyaan iyo Sunyaan inay daansi garayaan weliba waqti fiican ay qaataan. miyaan asigoo xafladda jooga ayay baahi qabanaysaa. intaas kadibna Sunyaan ayuu qaybta hoose cunto aaga soo dirsanaya. markii ay kusoo daahdan qaybta hoose ayuu usoo deganaya waxuuna arkayaa Sunyaan oo la fadhiso Shiyaan. asigana midaas waa uu kasoo xanaaqaya. intaas kadibna waa uu kasoo tagayaa xafladda. habeenkaas Linha ayaa gaari kusoo qaadayso welibana gurigeeda ayay keenaysaa. dhiil ayayna usoo bandhigaysaa waxayna ku dhehaysaa kadib qalinjabinta jaamacaddaada waxaan ku siin doonaa xirfadda aad baratay shaqo u qalanto. laakiin hal sharuud ayay ku xiraysaa. sharuuddaasina wax weyn ma aysan ahayn. waxay ku codsanaysaa labadooda inay saaxiibaan weliba xiriir jecel ay wadaagaan. hase ahaatee asiga midaas ma yeelayo waa uuna diidayaa feelka inuu u saxiixo. Sunyaan iyo saaxiibteeda Yanhana meel bar ayay galayaan balse tuuga ayaa foodeynayaan. intaas kadib Shiyaan ayaa ka celinayo wuxuuna dagaal ka dhex bilaabanayaa Shiyaan iyo tuugada balse halkaas ugu dambeyntii miyaan ayaa imaanayo kaasi oo ahaa Sunyaan garabkeeda. markii uu ka celiyana Sunyaan Shiyaan ayay ka raacaysaa. asigana meesha waa uu iskaga tagayaa weliba keligiisa. miyaan markii uu gurigiisa tago hooyadiisa ayaa soo wacaysa waxayna weydiinaysaa Sunyaan xaaladeeda. waxay ahaataba inay fiican tahay ayuu la wadaagayaa. Sunyaan habeenkii meesha uu miyaan fariisan jiray ayay iska fariisanaysaa kadib markii ay asiga weyday balse nolosha saxda hadda ayay bilaabatay maxaa yeelay waa ay qalinjibiyeen. maalinka xigana miyaan waxaa soo wacayo maamulaha shirkadda DeepSeek wuxuu rabay miyaan inuu ka mid noqdo shaqaalaha
kambaniga. ugu dambeyntiin waxaa dhacaysa miyaan inay shirkadda ay aqbasho kusoo biiristiisa. sidoo kale sunyaan isbitaal ayay tagaysaa, weliba internship ayay ku jirtay, balse miyaan iyo shinyaan waxay ogaanayaan cidda miyaan shaqada siisay inuu yahay linha adeerkeeda. intaas kadib waa uu usoo laabanaya, waxuuna arkayaa linha oo adeerkeeda la joogto. waxa uu u sheegayaa shaqadan inuu rabin hadeertaana uu iskaaga tagayo. linhan waxay isku dayaysaa inay wax fahansiiso, hase ahaatee waa uu ka diidayaa. maalinna waxaa dhacayso isbitaalka ay joogtay sunyaan in la keeno dhaawac emergency ah, laakiin waxaa dhacayso dhaawacaasi inuu geeriyoodo. midaasina sunyaan shoog ayay ka qaadaysaa. miyaana xanuun ayaa la soo dirsay, gurigiisana kama uusan baxaynin, asigana ma uusan rabin inuu sunyaan uu la wadaago xanuunkiisa. keliyana saaxiibkiisa shinyaan ayaa ogaa, hase ahaatee ugu dambeyntii sunyaan ayuu la wadaagayaa. waxay ahaataba sunyaan habeenkii guriga miyaan ayay imaanaysaa, cunto ayayna u karinaysaa, xoogaa ayayna la baashaalaysaa. ugu dambeyntiina waa ay kasoo tagaysaa. taxneena Sweet Fast Love qaybtii saddexaadna halkan ayay noo joogaysaa. muuqaalkan isku day inaad like saarto, janaalkana aad ku soo biirto, siina sheer garayso. inta aan kaga kulmeynana qaybtan qaybtiisa xiga. nabad ah.